السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كسو دواada يوتيوب channelka Gao Technology haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad channelka soo booqato waxaan ka codsanayaa subscribe saarto sidoo kale videoga alla gareyso ana si share gareyso si asxaab badan u gaaro maanta waxaan bilaabi doonaa ama halkeedii ka sii doonaa casharradeennii web design ka ahaa maanta waxaan sameyn doonaa HTML iyo CSS ayaan ku shaqeyn doonaa CSS ku saddex nooc ayaa inta badan wax loogu qoraa in internally loogu qoro external iyo inline waa soo aragnay iyadoo style la isticmaalo kadibna wax lagu dhex qoro waa soo aragnaa ma leeyahay ka dhex shaqeysaa maanta waxaan arki doonaa inline CSS sida u shaqeysaa ayaa maanta arki doonaa okay aan website ku dhisi doonaa insha Allah intaan gaarno waxaan dhihi doonaa shift number 1 xagee waa waxaan joogi kacsiyan kan wuxuu yaalaa desktop yaalaa waa kana waana soo baranay sida loogu soo furo inaad tiraahdo file kadibna open folder kan aan CSS mid hadda loogu furo kadibna select aan diraa waayahay title-keena waxaan ka dhigi doonaa website ayaan ka dhigan doonaa waayahay halkan normal waxaan rabnaa inaad samaysan header sidoo kale website-keena waxaan ku koobnaan doonaa qayb dhexe oo la yiraahdo div class aan ka abuurano body iska lahaana qaybta dhexe iyo footer-keeda website kasta intaas ku kooban header-kiisa qaybta dhexe waxaa waaye inta badan soo muuqato iyo footer-ka intaas website-keena ku koobnaan doonaa haddii aan soo kiciyo haddii aan HTML galo oo soo kiciyo HTML sawirada ay ugu jiraan isticmaali doonaa haddii aan index soo kaasho waxaad arki doontaa inaysan waxba ku qorneen shaashada cad laakiin ciwaankeedu maxaa waaye website uu noo saxan yahay marka okay header saan qorxano maanta waxaan isticmaali doonaa internal CSS aan isticmaali doonaa waa style sidaan loo soo furtaa style kadibna gudihiisa kow waxaan dhihi doonaa header-kaan rabaan shaqo waxaan leenahay width-giisu ama dhir balaciisu 100% shaashada ha ileekaado height-kiisu ama jooggiisuna ha ila noqdo somehow 80 pixel waxaan samaysan doonaa background color saan ku garto because haddii aan background color aan u samaysanin waxaan ma arki doonaa maana so background color daan u samaysano header-ka saan nagala sameeyey header-kan waxaan rabaa sidoo kale aan hal mar design-ka dhameeyo header-kan waxaan rabaa inaan soo geliyo logo sideen loogu soo gelinaa kow intaa imaadi doonaa ugu horeyn header-ka asaga kala jebin doonaa waxaan dhihi doonaa kadib image-gii dhexgeli image-kiigana waxay ugu qoran logo.png symbol daa refresh iraado loogada saan u soo weynaatay marka waxaan rabaa inaan xadidno oo aan yareyno maxaa isticmaali doonaa intaan tagi doonaa waxaan dhihi doonaa header-ka image ku dhex jiro ayaa shaqo ka qaban doonaa kow waxaan leeyahay width-giisu 100 pixel balaciisu 100 pixel iga dhig height-kiisa ama dhererkiisuna waxaan u rabaa somehow 90 pixel waxaan rabaa macnaha inuu la ekaado meeshaas refresh daa iraahdo why not inta waxaan dhihi doonaa qaladkaasa ku jira soo jeedid refresh waa dareemaysaa marka image waxaan iska dhihi doonaa float left si haduu cabirkiisu igu saxmo refresh waaya waxaan rabaa inaan soo geliyo home about waxyaalihii meeshaan yeelay inaan soo geliyo waxaan kow xageen tagayaa waxaan imaadi doonaa image hoostiisa waxaan ka furan doonaa navigation waxaan kasii dhex furan doonaa ul unordered listaha ayaan kasii dhex furan doonaa li halkaana waxaan kasii dhex furan doonaa list of anchor tag href meeshaan waxaan saaran doonaa why href aan ugu sameynayna because haddii home keligiis aan meeshaan ku qoro
hadhow waxaan u baahanahay homeka camal ama about marka click la siiyo in pageka lii furo si meeshaas aan u samaysto waa inaan linki wacin xajireefaha maxaa waa xajireefaha waxaa lagu wacaa linkiisa lagu wacaa hadda haashaas ka saaran doonaa waxaan dhihi doonaa home intaan la iisoo koobiyey list of element li waxay u taagan tahay list of element ayaa waxaa u taagan tahay li home vision somehow home about iska dhe vision sidoo kale mission intan waxaan iska dhehnaa history ama history iska dhe history waya control s refresh da marka sidaan noqday waa inaan maamulno macnaa hadda sidaan aqli maaha waa inaan maamulno intaan tegi doonaa styleka dhex bahaysta markasta labada style dhexda waa ku jiri doontaa halkaasa tegi intana leenahay waxaan leenahay headerka navigationka ku dhex jiro ul ku dhex jiro aan shaqo qaban doonaa maxaan leenahay float left kuwa float left igu sameey maxaa waa fiiri hadda geesku jooga laakiin markii float left waa lasoo sikiyey cabirkiisa loo isticmaalaa waxaan u baahanahay headerka header naaf ku dhex jiro ul-ka li-ga ayaa iyadana shaqo ka qaban doona waxaan leenahay display inline maxaa display inline waxay noo qabanaysaa in la jiifiyo kadibna calaamadahaas laga saaro refresh yes waa dareemaysaa control plus aa laga saara waxaan rabaa qoraalkaas yariiska ah inaan ka saaro qoraalkan hoos harijintaas hoos inaan ka saaro maxaa isticmaalaa intaan tegi doonaa waxaan dhihi doonaa kow harijimaha saa u saaro waa inaan headerka isticmaalo because harijimaha waa inaan eeda tago header navigation ku dhex jiro ul-ka li-da eedaan shaqo qaban doonaa maxaan leenahay text decoration none text decoration maxaa waa qoraalkaas yariiska haddaan refresh idhaahdo waa laga saara ujeedaa sidoo kale waxaa u baahanahay farta colorkeeda inaan bedelo color aa leedahay farta colorkeeda markaa bedelayso waxaa isticmaali doontaa color farta colorkeeda waxaan rabnaa white done font size farta sizekeeda waxaan ka dhigan doonaa 30 pixel haddii aan refresh idhaahdo sidaan noqday marka farta waxaan rabaa familygeeda inaan bedelo fonty family waxaan ka dhigan doonaa aniga arial fonty family arial waa isbedesho waxaan rabaa inaan kala fogeeyo si aan u kala fogeeyo waxaan isticmaali doonaa margin left waxaa ii kala sigisaa 20 pixel refresh waa la kala sikiyey margin left 20 pixel la kala sikiyey okay على float left si aan kor ugu soo sikiyo qaybta kor fiir haddii aan meesha ka tiro waan ku baraarinahay haddii aan intaan tiro maxaa dhacaa fiiri somehow farta qayb kora yar jirta waxaan rabaa yarna hoos soo dejiyo si aan hoos ugu soo dejiso waxaa isticmaali doontaa margin top 10 pixel 10 pixel hoos igu deji refresh waa la soo dejiyo okay waxaan doonayaa in farta hadda markaan soo dul istaago inaan yeelo hover markaan soo dul istaago in colorkeeda isku daro background yarna aan sameeyo waaya waxaan leeyahay intii maaw
حاليه دورا هيركا navigation markasta wadada maraysa UL ku dhex jiro LI-da eeda waxay u samaysaa hover ugu samee koob waxaa leeyahay colorka marka soo dul istaago waxay iga dhigtaa black sidoo kale background color igu samee background colorkeeda waxay iga dhigtaa yellow refresh haddaan idhaahdo markaa soo dul istaago maxaad dareemaysaa farta in la bedelo colorkeeda laga dhigo yellow waayahay xogaa colorka waxaan rabaa meeshaas yar inaan u yeelo afurgees waa afurgeeskaas aan ka qaado background-iga waxaan dhihi doonaa saa u qaado border radius aan isticmaali doonaa border radius 20 pixel border radius 20 pixel aan isticmaali doonaa somehow 20 doo badan tahay aan ka dhigo 10 ayaa naga badan haddii aan 10 ka dhigo oo refresh iraahdo waxaad dareemi doontaa sidaan uu yahay waaya qaybta wax kusoo dhamaana marka